waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Ustaad Saciid Training. waxaynu guda geli doonaa xalqadii 25aad ee casharadeenna inoo soo socday. qaybtan sida aad shaashada ka aragtaan waxaynu ku baran doonaa Facebook page banner wax loo yaqaano. qaybtan qaybtii ugu horreysay waxaan kaga soo hadalnay YouTube banner. marka qayb kaste ama Facebook ha ahaado ama page ha ahaado ama website ha ahaado wuxuu leeyahay size u gooniya oo cabirka laga qaato. marka waxaynu baran doonaa Facebook page banner marka stagekiisa iyo magaranaysaa habka loo diyaariyo ilaa waliba inagoo markaynu diyaarino kadib haddana aan isku dayi doono inaan saarno muxuu ahaa Facebooka. marka waynu guda gelaynaa laba qaab waa samayn karnaa in new page intaan niraahno halkaas sizekii magaranaysaa aanu ku qorno sizeka loo baahan yahay oo ah 690 balaca dhererkuna uu yahay 388 resolutionku wuxuu noqonayaa 96 kadibna aan saa kusoo furano sizeka saa kusoo furano. laakiin hadda waddo kale baynu maraynaa. waxaan soo furaynaa Google-ka soo furaynaa Google Chrome-ka. marka waxaan ku qoraynaa Facebook page banner baan ku qoraynaa. kadib markuu saa inoogu soo furmo qaybahan sample-ka oo meesha ku jira baynu soo qaadanaynaa. waa download garayn kadhaa haddaad doontid right click baa inta tiraahdid baa see furanaysaa. kadib page banner baan ku qoranaa. waa save garaynaysaa. markaa save garaysid wax isku daynaa inaan soo gelino halkan si aan cabirka uga qaadano. desktop-ka inoo yaalay waa kan, waa soo gelinaynaa. wuxuu u baahan yahay documentiga qaabka u save garaysnaa baa magaranaysaa qaab aan anfacayn weeye. marka sizeka uu cabirku ku save garaysan yahay baynu soo bedelanaa png baan kasoo dhiganaa. start menu baan tegaynaa, paint baan qoraynaa. paint baan soo furaynaa. file baan tegaynaa, open baan leenahay, sawirkii baan soo qaadaynaa. halkaa markaan joogno waxba ka bedeli mayno, keliya save garaynta markaan save garaynayno option ina siinayaa. optionka marka tanu asagoo ku save garaysanaa waa bedelaynaa, waayo calaamadan uu ku save garaysan yahay waa size una qaadan karin Photoshop-ka. marka waxaynu ka dhigaynaa ama png baan ka dhigaynaa ama jpg baan ka dhigaynaa. jpg baan qaadanaynaa kadib save baan leenahay. qaybtii hore miyaan ku bedelaa buu leeyahay. marka laakiin qayb kaluu sameynaya waxba ku bedelmaayo. qaybtuu sameeyey waa tan baan malaynayaa, kulle isku magac baa ku qoran. waa soo qaadanaynaa, open baan leenahay. qaybtaa in ahayd baan filaya, waa isu egi la kala garan maayo. marka qaybta kale aan soo qaadaynaa maadaama magaca aynu u kala bedelin waxba ma la kala garanayo. marka halkaa markaad joogtid tan baan rabnaa inaan marka cabirka ama size ka qaadano. cabirka ama size ka rabnaa inaan halka ka qaadano.
marka waxaan sameynaynaa waxaan soo gelinaynaa background linki baan tegaynaa qaybtan baan kasoo dooranaynaa qaybtan baan kasoo dooranaa control T baan leenahay waa soo yaraynaynaa shift baan qabanaynaa hoos baan soo jiidanaa dhinacaasaan u daynaynaa hoos baan qabanaynaa dhinacaasaan u daynaynaa geeskana waa qabanayaa cabirka mayna sharaxin kamana ayna hadlin laakiin sayska inta cagaarku ku jiro sayskeedu waa 461 pixel iyo 75 dhinaca qaybta koro oo magaranaysaa ama gabi ahaan markii la isku darana 820 pixel ilaa 13 macna sayska halkan ku jira sayskani waa mobilka 461 waa mobilka macna intuu ka muuqan karo 820 kana waa TV laakiin sayska hadda ku jira oo sayska halkan ku fadhiya halkan aanu ka eegaynaa sayska ku jira waa 690 388 marka sayska saxda ah kan weeye marka inagu hadda sayskii hadday sida loo gelinayo waa aragnay laakiin cabirka kanaynu ka qaadanaynaa hadda cabirka kanaynu ka qaadanaynaa sorry cabirka kanaynu ka qaadanaynaa halkan markaan joogno copy baan ka sameynaynaa kan control J baan leenahay copy baan ka sameynaynaa waa qaadanaynaa meelahaas iska geenaynaa kore kana u soo laabanaynaa right click baan leenahay waxaan rabnaa inaan stroke ku sameyno ama color aan gelino kor stroke baan tegaynaa waa maxay numberka meesha ku jira weyn sayska opacity ima doorna number 5 baa ku jira stroke baynu gelinay wareegga kore cad baanu gelinay kanaan ku soo laabanaynaa hoos baan soo dhigaynaa marka control T baan leenahay waxaan rabnaa kan inaan meesha dhan ku sino hoos baan qabanaynaa control T baan leenahay meesha dhan baan ku sinay kanaan qabanaynaa marka inaa kan hoose inuu soo kormaraa rabnaa hadda saas ku diyaarsan yahay marka kanaan ku soo laabanaynaa halkan baa wey meesha marka labada daliigood inta u dhaxaysa baa waxaa rabaa inaa qoraalada iyo wixii aad gelisid marka halkan waxaan isku dayeynaa calaamada Facebook oo kale iyo sida loo diyaariyana inaan magaranaysaa aragno bilmetal layer baa soo furanaysaa calaamada circle-kana waa wadanaa inahaasaan u daynayaa colorka waxaan dooranayaa buluug baan dooranayaa qaybta sare markaad dooranaysa alt delete baa la yidhahdaa qaybta hoose markaad dooranaysidna waxaa la yidhahdaa control delete baa la yidhahdaa marka control delete baa oranayna kadib control D baan oranayna hadda calaamadda Facebook way joogtaa macnihii waxaan ka dhiman ft inaan ku darno marka waxaan tegaynaa qaybta qoraalka T-da ku qorantaa tegaynaa waxaan soo dooranaynaa qoraalka uu ku qoran yahay Berlin Sans FB kaasaynu soo dooranaynaa halkaasaan dhigaynaa kadib F baan qoraynaa
baan qoranaa qoraalkan sorry f baan qoraynaa size-kana waxaan isku dayaynaa inaan yaraysano 100 baynu ka dhiganaa 150 iyo xogaa buu jira ama 80 meelahaas 80 baan ka dhiganaa weli waa weyn tahay size-kaan yaraynaynaa okay 48 baan ka dhiganaa 48 baan ka dhiganaa calaamadda f oo kale ama Facebook saasaa loo diyaariyaa control baan qabanaya labadooda isku xirayaa labadoodan group ka dhiganaya marka labada group markaan ka dhigo waa ka meeshan doono u haysan karaa markay layer leeyihiin meeshan doono u haysan karaa bil metal halkaasaan dhiganayaa hadaan rabo inta waa kasii yaraynayaa okay halkaasaan dhiganayaa sidoo kale waxaan isku dayaynaa calaamadda YouTube-ka kale inaan sameyno inkastoo calaamadda YouTube-ka dhowr qaab baa loo sameeyaa marka iyadana iyadoo circle iska sameysanaynaa marka colorka iyada la saarayo waa guduud maadaama astaanka ama loogada YouTube-ka ay guduud tahay horena alt delete baa horena sorry control delete baa horena guduudka weli isla layer kala furana layer kale markaan furno waxaan sameynaynaa layer kale markaan furno waxaan soo qaadanaynaa pen tool calaamadda loo yaqaano pen tool baan soo qaadanaynaa control z halkan baa la imananaa dhag baan ku siinaa dhag baan siinaa halkan markaa joogto waxaa oranaysaa control enter baa oranaysaa error baa galay saa uga saadid control shift I baa oranaysaa kadib si aan u saarno colorka cad waxaa oranaa alt delete kadib control D baa oranaysaa marka astaanta ama loogada YouTube-kana saas u sameysanta labadooda group baan ka dhiganaa isku xiranaa control baan qabanaa kana tigana isku xiranaa marka isku xirnaa hadda iyadana waa group waa taas halkan aan keenaynaa control T baan leenahay waa yareynaynaa halkaas inoo joogisa marka inta aad samaysatid magacyaashii baa qori kadhaa magaca baa qori kadhaa tusaale ustaad saciid baa qoranaa marka ustaad saciid saciid training oo kale aan qoranaa marka muhiimaddu waxay ahayd in aad size-ka samaysan kadib magaranaysaa waxa aad ku qoranaysaa adeeg ku taala magaranaysaa calaamadda hadda FB-ga iyo YouTube-kana sida loo diyaariyo waa aragteen Facebook marka magacaaga ku qoraysaa YouTube magacaaga ku qoraysaa wixii kale adigu aad ku sharaxanaysa ku kordhisanaysaa adeeg ku jira waa isku xiraynaa alt control A baan leenahay markaan iraahno kadibna control E baa oranaa qaybtan hoose oo sample-ka wax ku cabirinaynay waa iska dhiliidaynaa waxba uma baahnin intaa markaan haysano waa save garanaynaa magac baan u bixinaynaa magaca u bixinayna wuxuu noqonayaa sample
sample page baan ku qoraynaa waxaan ku save garaynaa gbe oo ah backgroundka marka save baan leenahay waa kana halkan inoogu diyaarsantaha wixii aan diyaarinay intaa kadib waxaan samaynaynaa waxaan soo furaynaa facebookaan soo furaynaa pagekiisa facebook pageki marka waa kan meesha la rabo in la bedelo marka waa meesha waxaynu samaynaynaa edit baan leenahay kan saaran baa edit leenahay upload baan oranaynaa sambalkii aynu diyaarinay baan soo gelinayna save baan leenahay waa kaasa intii loogu talagalay wax lagu qoro waa ay muuqanaysaa intii loogu talagalay wax lagu qoro waa ay muuqanaysaa magacii waa kaas oo dhammaystiran halkaa ka muuqda iyo astaantii calaamadihii marka qaybtana halkaas inoo joogaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.